waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dufcaddii sideedaad ee maanta ka qalin jabinaysa iskuulka oo aan ku ammaanayo maamulaha iyo macallimiinta iyo ardayda juhdiga faraha badan ay ku soo bixiyeen inay heerkan maanta soo gaaraan wixii ay barteen iyo akhlaaqiyaadkii ay barteenna waxay noogu muujiyeen iyadoo practical horteena ka sameeyeen khudbadaha ardaydu ay jeedisay baan ku baranaynaa wixii ay bixiyeen luqadaha ay ku hadleen iyo riwaayadda ay hortanada ku jileen oo ka turjumaysa waxyaabaha waaqiciga ah ee degmada iyo gudaha iyo iskuulkaba intaba ka dhici kara dhammaantiin waxaan leenahay waan aragnay wixii aad barateen waxaan kula dardaarmayaa inaad waxbarashadiina hore ka sii wadaan ka bah waxbarasho ahaan 20 sano ka badan baan maamulo iyo macallin iskuul soo ahaa waxaan rabaa inaan ardada maanta qalin jabinaysa aan iraahdo marka koowaad hambal iyo marka labaadna naga raali ahaado haddaan nahay dadkii degmada idinla joogay iyo dadkii xasaanadaha iyo xilalka idinkaga hormaray haddii aan nahay waad noqonaysaan maalintiina waan u hubnaa naga raali ahaada waxaad nooga raali ahaataan in iskuulkii waad dhammaysteena jaamacaddii aad tegi lahaydeen aysan maanta magaalada loogu olin nooga raali ahaada waxaad nooga raali ahaataan dagaaladii sokeeye iyo problemyadii dowladdii dhexe markii ay burbureen degmooyinku waa dirareen labada degme ee annaga nagu hareeraysan ee geesaha annaga ee dagaalka sokeeye ahliga waalidiintannadu ay la galeen waxaa maanta ka socota xafladtiin oo kale ah waxaana dhiganaya arday marka ugu yaraato 56diina 5 jeer ku laba jibaarmad haddaan tiradaas idin gaarsiin weyne naga raali ahaada waxaa nooga raali ahaataan degmooyinka dagaalka lala galay ee degmadannadu fiirsato ee aan maalin kasta ku celcelinayna degmadii difaacaan nahay iyagana aanu sabab u hayn inay xoroobaan cadowgana laga hor istaago inay maanta degmada ugu yar u leedahay 5 jaamacadood iyo 50 iskuul oo dugsi sare inaad hal xab kaliya dhigataan dhammaysaana nooga raali ahaada aad baan uga xunnahay ka aniga ahaan wasiirkii degmadiina mataliyaanahay haddaan degmada imid mar baan ahaan u soo istaagay inaan degmadaydan ku daawan waaye anigoo nolosha taala mid ka fiican oo ka qurux badan ku haysta inaan matalo golaheedii deegaanka berigii la dhisayaan u imid wax badan baan ka bartay oo haddii maanta oo dhan la idiin sharaxo ay adag tahay inaad ugu dulqaadataan kuna sii joogtaan waxaan ka bartay inay degmadaanu leedahay hal xisbi oo siyaasadeed hal xisbina waxba ma hormariyo hal xisbi oo isku xiran oo iyagu qof aan rabin aan degmada waxba ka goyn karin inay leedahay waxaan ka bartay tiim yaroo odayaal oo heshiiyey oo badankoodu waxna aysan qorin waxna aysan akhrin badankood qofka ugu fogi uusan weligiis xataa laamiga gurceel soo taaban badankood aan hanti dhaqaale tooda iyo degmada ku hormariyaan haysan inay degmadu gacanta ugu jirto aniga oo wixii aan ku tartami lahaa iyo hankii iyo qarashkii aan ku doorashada geli lahaa haystaan ka tegay subax diyaarad ka raac haddii la wada gabiyo qof walba geeraaray anu waxaan oran lahaa sidii nafta ku hayaan muuqaaga kuwii necba nuurkaaga markay arkaan runtii way ka naxaan hadday nal yar ka danshin adoon u nacayn sidii shalay ku naceen nal korkooda nal weyn ka dar gudoomiyaha degmada yaa hanku iiga jiray inaan magaaladan ka qaato 7 nin oo magaalada ka talisaa way diideen inaan gudoomiyihii degmada noqdo haddaad u aragto in doorasho inta gale la iiga guulaystay rag baa saxiixa qofka maanta gudoomiye degmo noqonayo 56diinaan arday hadday maanta hay-adu timaado inaad u shaqo tagtaan rag baa saxiixa waxaan ka xunahay haddiinan 7daas nin qof ka mida oo waalida inaan ku lahayn inaynan shaqo ka helin degmadan weligiina horumar ku gaarayn waxaan idiin sheegayaa oo laga xumaataan ama ku farxadaan haddii maanta barwaaqo sooran ee shaqaale rayida la qaybinayaa la yiraahdo haddii la yiraahdo maanta hantidii adduunka taale ee degmooyinka horumaray taala tan la keenaya inayna waxba ka helin haddiinan odayaashaas wax ku lahayn maanta waxa gacantiina ku jira inaad taad baarugtaada aad kacdaan waxa gacantiina ku jira inaad gugi carabta oo kala sameysaan waxa gacantiina ku jira inaad heeriyada inta iska qaadaan iska hor wareejisaan dadka manaxayaasha ee man laa yaktub wala yaqra hortiina taagan iska hor wareejisaan waxa gacantiina ku jira inaad idinku xildhibaanadii golaha deegaanka tii state-ka tii federaalka iyo tii horumarka iyo wasiiradiiba inaad doonataan booskii madaxweyne ku xigeenka lahaydeen inaad doorataan cid gadmaysa ee wax taqaanay wax arinaysa idinka intay gacmooyin kugu jiraan waa haddaad noloshan habeenka aad ku noolaataan qorraxda weligeed idinma soo baxayso 8 dufcadooda idinka horeysay 8 baad ku noqonaysaan 9 baad ku noqonaysaan 10 baad ku noqonaysaan waxaad u kala hayaamaysaan magaalooyinka ugu yaraan saad hal sano luuqada ama jaamacada aad u raadsataan magaalooyinka aad u kala hayaamaysan ma ka kacaysa meeshii hadda taal hadiina idinku ka kicin cid hadiyad idinku keenaysa
iyo irsaaqad horumar oo inta dibadda kaaga timaada jaamacad lagugu furaayo shaqaale lagugu siinaayana ma taal waxaan tegey balanbal baan ka safray ilaa baxdo iyo wasiil iyo hubyaanta dhalinyarada degmooyinka ee wax baratay iyo dadka magaalooyinkaas joogay sida ugu qanacsan yihiin dawladnimada si la soo koobi kara ma waxa gaaray neecawda iyo risqiga dawladnimada gaaray dhammaantood waa shaqaale dawladeed shaqaale rayida agaasimiyaal waa wada qurux badan yihiin balanbal caawa hal qof oo shaqaale rayida laba nin kaliya kaga hoy hal qof oo shaqaale rayida waxay xaq u lahayd degmada degmooyinka ugu sukay qaar ba hadda la aqoonsaday degmooyin loo aqoonsado boqol qof oo shaqaale rayid oo fadhigooda lacag ku qaatay leeyahay hadaanan maanta runta idin sheegin lama safan karo dadka idinka idin caburiye ee daaha mugdiga indhaha idinka saara lama safan karo waxaad xaq u leedahiin inay dadku heerka ay gaareen idinkuna aad gaartaan wixii ni aawaye marka aaw matalaadiin aaw yaa idinku jira meesha wax lagu qaybsanayo yaa idin aaday meesha lagu qaybinayo scholarship yaa la diraa wasaaradda waxbarashada heer state soo marisaa wasaaradda waxbarashada hadda wasiirka iga anigoo kala uu meesha joogay wuxuu galmudug u qaybiyaa intaas oo sano uu joogo 4 sanadoodba deeq waxbarasho loo qaybiyaa balanbal sanad kasta 50 arday ayay xaq u leedahay xataa haddaysan soo saarin hal qof oo maanta Turki iyo Yurub iyo Jarmal idin jira ee waxbarashada in kugu maqan ma jira yaad ka sugaysaan marka kuwan hadda joogay 50 ay gabi ahaantood waxay xaq u wada leeyihiin inay scholarship intay u tartamaan ay tagaan war aqoontaada haddaad ku dhacday haddaad ku baasta adiga kugu xirantay up to you in jaaniskii inaad tartantaa lagu siiyo xaq baad u lahayd yaa ceelka ku jira haddaad halkaan intaad ka socdaasho miiska wax lagu qaybsanayo aad tagto qaracan iyo calool xumaad ka soo qaadaysa markaad wixii inta soo qaaday halkan aad ku soo celisana isbaare idinku inaan arkaynin laakiin sili koronta ka sameysana magaaladan taala waxayna u taalaa rag 7 nin oo tirsan beel kasto balanbali qof bay ku leedahay ma dhintaan ma daalaan ma dhoofaan ma xanuunsadaan maalin magaalada kama tagaan waxaad matashaan reer balanbal oo dhan aad matashaan horumarkiinana gacantiinu ku jira aniga waad iga mudnaydeen xaq baadna u lahaydeen hadday tahay xildhibaan isteedii hadday tahay wasiir idinka degmada joogay bilow ilaa dhammaad idinka joogay inaad qaadataan xaq baad u lahaydeen miiskii wax lagu qaybinaya intaan xamar ka imid soo qaatay anoon balanbal joogin dadkii lahaa baa doono waay kana xayiray kuna xayiray meeshii taal waxaad xaq u leedihiin inaad intaad kacdaan aad banaanka u soo baxdaan revolution iyo kacaan aad samaysaan maya aad tiraahdaan beel kasta ay kan hortaagan mid ku bedelay leedahay beel kasta ay midka maanta hortaagan ee gafanaha ah ee dhiigooda jaqaya mid ku bedelay leedahay haddaad ila bedeshaan oo doorkaas waa idinku hogaaminaya aad raacdaan magaalo nadiifa 11 dal oo carbeed ah hal wiil isgubay uu badbaadiyay hadda taariikhda iskuulka ku soo dhigateen hal wiil oo intuu wax bartay shahaadadiisu wax u goyn weysay macmacaan la noqday macmacaankii inta lagu canshuuray talaagadihii laga kala tuuraa dab isqabadsiiyay 11 wadan oo kaligi taliyaal ay joogaan iyo sabab u noqday inay meesha ka kacaan kuwan waa ka adagna dadka ugu fulaysan yihiin haddaad ula qaadataan magaalada waa ka baxayaan iyaga dadka ugu tabar daran waxaad ila qaadataan inaan kacdoon aan hogaamino qof kasta reerkiisa ku laabtay lidhaado ninkaan naga wareejiyay ninkii ku bedeli lahaa aan keensan hadday diidaan toddobadooda inta isku xirxirno 7 maalmood qorraxda aan u dayno dagarbaha la isaga xirxiro waxaa dhibta nabadda waxaa dhibta colaadda hal bil hadday wax dhici waayaan baabuur beenta shidaaliyaan ay 4 wiil diraan dadka dariska ay u diraan markay dhibaato soo dhacdo xaqaaqidan idin sheegaya waxa laga yaabaa inaynan wali heerka noocaas ay fahmin xaaladahan inay dhageysan hal bil haday magaaladan oo nabad noqoto baabuur bi shidaaliyaan qof bay diraan qof maskiin oo xoolihiisa maalanaya la soo dilaa faa'iidada ay ku qabaan ma taqaanaa marka waxay ku qabaan gruubiyada WhatsApp-ka dibadaha inay galaan gruubiyaan ugu jirnaa dalay dibad baan kala joognaa dhibaato dhacday soo diray dhahaan dhaqaalaha la soo diraa raashin baa la soo diraa rasaas baa la keenaa hadda dagaal ma dhicin wali problem bay abuuraan ka bacdina isla ayagiiba intay nabad raadiyaan oo ay wiilashii soo xirxiraan oo timaha ka xiraan bay dhahan mar dambe hawl laabanina halkaas waxaa ka dhashay baqaar rasaas iyo baqaar raashina dib baa loo iibgeeyaa suuqa lagu soo celiyaa indhaha fura indhihiina kala fura indhigiina lagu gorgortamo oo la yiraahdo maanta halkan dhibaata ka taaganaya hadii gaari hoon la soo yeeriyo
nimanka ashaatiyaasha guduudan ee qalin jibinaya cid ugu horeyso gaariga fuulayso ayaga qiiro kugu saaraya waligii degmada kama soo baxaya kan ku diray degmada uu joogo waligii kama soo baxayo inta kuu shidaaliyo rasaasta ku dhiibo tag ku leeyahay markaad soo laabatana hal badeel qabrigaaga ku darsan maayo oo wallaahi hal badeel qabrigaaga ku darsan maayo qof kale hay dhigaysa let us say marka no maanta aan dhahay waxaan ku soo laabanayaa waxaan rabnaa oo hadda meel gabagaba noo maraya gudoomiyaha jaamacadda ummadda inaan farac uga keenno magaalada inaan uga keenno waxaan u tagay gudoomiyaha jaamacadda ummadda wasiirada deegaanka iyo wasiirka degmada ugu matalayaan u tagay uu ogolaaday waxaan ka codsanay haddaanan awoodi karin 5 maalmood oo xiriir ah inaan macallimiin qaado in khamiista iyo jimcaha nala siiyo waxaan isku afgaranay 3 maalmood oo arbaco iyo khamiis iyo jimcaha inaan macallimiin part-time helno jaamacadda ummadda rabnaa marka inaan halkan ka furno intii tagaysa magaalooyinkaas kala aadaysa haddaysan jirin duruuf ku kalifaysa waxaan ka codsanaynaa inay iyagu noqdaan ciddii u horreysay ee nala camiraysa maaha jaamacad barayfaday mid anigu aan leeyahay cilmi college kama furaayo balanbal jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed yaan rabaa inaan xarun halkan idinkaga furo idinku inaad noqotaan difaacidii u horreysay ummadda waxaan idin si hordhac in kugu sii sheegayo indhaha laga waaban karin siligii korontada ahaan idin sheegay inuu jaamacadda kaga hor imaanayo magaalada afkeeda siligaasi magaalada ka hor imaanayo hadduuna taagay waxaan rabaa inaad idinku noqotaan cidda hubaysan magaalada difaacanaysa kuna hubaysan qalinka iyo buuga kaliya ma qaadanayno tay ayagu qaateen ma qaadanayna waxaan la imaanaynaa falsafad ka duwantay ayagu la yimaadeen ayaan ku qaadanaynaa assalaamu calaykum aad baa u mahadsantihiin